wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijkan xogaha dawladda ee kusoo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogta dawladda ee deegal kasta. barnaamijkan waxaan kusoo gudbin doonaa madaxweynaha Galmudug Qorqor oo damacsan inuu ka saaro siyaasiyiin miisaan culus ku leh siyaasadda koonfur galbeed leeska aqalka sare. dawladda Soomaaliya oo ka hadashay halka uu marayo xiriirka ka dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya. dalka Djibouti oo war ka soo saartay dagaalka maalmihii ugu dambeeyay ka dhexeeyay Soomaalida iyo Cafarta. qaar ka mid ah senatarada aqalka sare oo lagu doortay Baydhabo. dalka Raashiya oo ka badbaadisay dalka Turkiga dhibaatooyinka ugu xumaa ee wajahayay oo ay sabab u ahayd dalka Mareykanka iyo xogo kale ayaan idiin soo gudbin doonaa. aan ku bilownaa sida warbaahintu soo xigatay ilo wareedyo ayaa sheegay in madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor uu wajahayo culays siyaasadeed oo aad u ballaaran oo ku aadan xulashadiisa musharaxiinta 8 kursi aqalka sare ee laga soo dooranayo Galmudug. xogta ayaa ku waramaysa in madaxweynaha maamulka Galmudug uu ka fakarayo sidii leeska aqalka sare uu uga saari lahaa ugana reebi lahaa 3 senatar oo kala ah senatar Bashiir Bukhari oo ah gudoomiye ku-xigeenka aqalka sare iyo senatar Cabdi Axmed Dhuxulow Dhagdheer iyo Yuusuf Geele Ugaas. 3 senatar oo ka mid ah xubnaha sida aadka ah u mucaaradsan madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Farmaajo. sidoo kale warbixinadu waxay sheegeen in madaxweynaha Galmudug Qorqor ay suurtagal tahay inuusan ku soo darin senatar Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid iyo Samsam Daahir, taas oo ka dhigi karta in kuraastooda ay waayaan 5 ka mid ah siyaasiyiinta senatarada ee laga soo doortay Galmudug. warbixinada ayaa intaa ku daraya suurtagal inay tahay in madaxweynaha Galmudug uusan ku soo dari doonin musharaxiinta aqalka sare madaxweynihii hore ee Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf oo loolan adag ku jira in kursiga uu ka bedelo Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid. Xaaf ayaa horey uga digay dagaal ka dhaca Galmudug haddii Qorqor uusan cadaalad u falin xubnaha loolanka xildhibaanada baarlamaanka. masalan go'aanka gaarista doorashooyinka aqalka sare ee Galmudug ayaa laga soo xigtay xubnaha ka tirsan Galmudug waxaana jira durba culaysyo badan oo soo baxaya guddiga doorashada ee maamulka Galmudug ayaa xadii Qorqor ka dalbaday in uu soo gudbiyo liiska musharaxiinta aqalka sare. xilli sidoo kale wararkii ugu dambeeyay ee doorashada aqalka sarena magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ee maamulka koonfur galbeed lagu doortay kursiga labaad ee aqalka sare ee maamulkaasi, taas oo ay ku tartamayeen 2 musharax oo dumar ah. kursiga labaad ee maanta doorashadiisa ay ka dhacday magaalada Baydhabo ayaa waxaa ku tartamayay Ayaan Aadan Cabdullaahi iyo Farxiyo Nuur Aadan oo ka mid ah musharaxiintii uu horey u shaaciyay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Lafta Gareen. waxayna guusha kuraastaasi ay raacday Ayaan Aadan Cabdullaahi oo iyadu noqonaysa senatarkii labaad ee laga soo doortay deegaanada koonfur galbeed ee u matalaya aqalka sare. Ayaan Aadan Cabdullaahi ayaa heshay 79 cod halka Farxiyo Nuur ay heshay 8 cod oo kaliya siday ku dhawaaqeen guddiga doorashada ee maamulka koonfur galbeed. sidoo kale waxaa gorsii horeysay la doortay kursigii ugu horeeyay ee aqalka sare ee maamulkaasi, kaas oo isagana si la mid ay ku guuleysatay Samsam Ibrahim Ali oo iyaduna horey u ahayd senatar ka tirsan aqalka golaha sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. si kastaba ha noqotee labadii kursi ee ugu horeeyay ee laga doortay koonfur galbeed ayaa noqday haween. koonfur galbeed ayaa noqonaysa maamul goboleedkii labaad ee bilaaba doorashada gaar ahaan soo xulista senatarada cusub ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. dhaga kalena wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdisaaq Maxamuud ayaa mar kale ka hadlay arrimo ku aadan xiriirka haatan soo hagaagaya ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya oo ah 2 wadan oo daris ah. Maxamed Cabdisaaq ayaa shaaca ka qaaday in hadda ay dib u bilaabeen wada shaqaynta labada dawladood isla markaana ay sii wadi doonaan xoojinta xiriirkooda. wasiirka ayaa tilmaamay in dhawaan la kulmay dhigiisa Kenya ayna ka wada hadleen sidii loo sii amba qaadi lahaa xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal. waxaan soo celinay xiriirka diblomaasiyadeed oo go'naa 6 bilood. waxaa soo laabtay wada shaqaynta. waxaan la kulmay dhigiga Kenya oo aan ka wada hadalnay sidii loo sii amba qaadi lahaa ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya. dhanka kale wuxuu soo hadal qaaday arrimaha ammaanka Soomaaliya isagoo xusay in ay ka go'an tahay in sare loo qaado awoodda ciidamada si looga adkaado dagaalmayaasha. waynaan sare u qaadnaa awoodda ciidankeena Soomaaliya si ay u qabsadaan dhul badan, waxaana aan diiradda saaraynaa inaan ka sarreyno cadowga ayuu yiri. si kastaba Soomaaliya iyo Kenya oo mar xiriirkooda uu go'ay kadib khilaaf soo kala dhex galay ayaa dib u soo nooleeyay, waxaana si rasmi ah loo furay safaradaha labada dal.
arrimaha ayaa ku soo aadaya xilli haatan Soomaaliya ay galayso doorashada guud oo isugu jirta tan baarlamaanka labada aqal iyo midda madaxweynaha oo xamaasad gooni ah leh. Warbixinada kalena dowladda dalka Djibouti ayaa markii ugu horeysay si adag uga hadashay dagaalada u dhexeeya qowmiyadda Soomaalida iyo Canfarta kadib markii caasimadda Djibouti ay ka dhaceen qulqulatooyin u dhexeeya labada dhinac kuwaas oo sababay khasaare xoog leh oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed. Siciid Nuux Xasan oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee Jamhuuriyadda Djibouti oo ka hadlayay ayaa wariyaasha u sheegay in dowladdu aysan u dulqaadan doonin sii socoshada rabshadaha ee ka soo cusboonaaday dalkaasi ee Soomaalida iyo Canfarta. Wasiirka ayaa sidoo kale tilmaamay in haddii ay sii socdaan qulqulatooyinkani ay halis u tahay Djibouti sida hadalka uu dhigay. Sidoo kale wuxuu faray ciidamada ammaanka inay qaadaan tallaabooyin degdeg ah oo looga hortagayo rabshadaha si aysan u dhicin waxyeello kale oo la gaarsiiyo shacabka. Rabshadaha saacadihii la soo dhaafay ka dhacay caasimadda Djibouti ayaa waxa ay dhaliyeen dhimasho iyo dhaawac iyo burbur baahsan oo loo geystay guryo ay deganaayeen dad rayida. Ugu dambeyntii rabshadahan ayaa sababay in ciidamada booliiska ay ku soo baxaan isla markaana ay dadka u adeegsadaan sunta dadka kaga ilmaysiisa si loo kala caydhiyo. Xiisadda ka soo cusboonaatay Djibouti ee u dhaxaysa qowmiyadda Soomaalida iyo Canfarta ayaa daba socotay dagaallo ka socday maalmahani deegaanada Garbaciise ee Itoobiya oo ay isku hayeen Soomaalida iyo Canfarta. Dhaga kale xogeena kale ee dunidana madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa bishii la soo dhaafay wuxuu sheegay inuu ka shaqeynayo xoojinta xiriirka Raashiya iyo dalalka Islaamka ah si uu u horumariyo dhaqaalaha dalka. hase ahaatee waqti ay hoos u dhacday lacagta liiraha ee Turkiga, dadaalada uu bixiyay Raashiya ayaa gees mariyay dhibaatooyinka uu kala kulmi lahaa dalka Turkigu, waxaana Turkiga ay si dhaqso leh u soo noolaatay lacagtiisa liiraha kadib markii toddobaadyadani dalxiisayaasha Raashiya ay buux dhaafiyeen dalka Turkiga. Hal maalin oo kaliya 140 diyaaradood oo dalxiisayaal Raashiya ayaa ka degay garoomada dalka Turkiga oo loo furay. Turkiga ayaa ballan qaaday inay ka go'an tahay in si tartiib ah uu kor ugu qaado xiriirka ganacsiga ee uu la leeyahay mid ka mid ah saaxiibada ganacsiga ugu sareeya waana Raashiya, iyadoo labada dal ay doonayaan inay gaadhaan bartilmaameedkooda mugga ganacsiga ee ugu sareeya. Sida uu sheegay wasiirka ganacsiga ee Turkiga Mehmet, waxaan doonaynaa inaan horumarino ganacsiga aan la leenahay Raashiya si isu dheelitiran oo ku salaysan guul wadareed labada gees, ayuu yidhi wasiirka ganacsiga ee Turkiga kadib markii booqasho uu ku tegay Moscow isbuucii la soo dhaafay, isagoo carabi ku adkeeyay go'aanka Turkiga ee ahaa in la keeno mugga sarifka ganacsiga 100 bilyan oo u dhiganta 845.4 bilyan oo ah yoolka dejinta ee inay gaadhaan ganacsiga labada dal. Waxaan leenahay iskaashi dhab ah oo dhinaca tamarta ah. Waxaan doonaynaa inaan ballaarino iskaashiga dhaqaalaha halkaas oo aan bedelayno meelaha kala duwan ee dhibaatooyinka ay ka jiraan labada dali, ayuu yidhi. Horumarka muddo dheer la sugayay oo dhiirigelin u ah warshadaha dalxiiska ee Turkiga. Dalxiisayaasha Raashiya ayaa bilaabay inay yimaadaan waddanka. Raashiya ayaa ka badnaa guud ahaan 13% tirada guud ee dalxiisayaasha ee yimid Turkiga qaybtii hore ee sanadkani, iyada oo 746,724 booqdayaal Raashiya ay tageen dalka Turkiga. Ku dhawaad 5.8 bilyan oo ajnabi ah ayaa booqday dalka Turkiga qaybtii hore ee sanadkan. Taasna waxay gacan ka geysatay in durba ay dib u soo laabato lacagta liiraha ee Turkiga, wuxuuna Turkigu uga mahad celinayaa Raashiya. Erdogan ayaa intii ay socdeen shirka lagu magacaabo Kazan ee 12aad sheegay xogta dhoofinta iyo kobaca dhaqaalaha ee dalkaas 3 bilood ee ugu horeeyay ee sanadkan ay markhaati ka kaceen guulaha isdaba joogga ee Turkigu uu gaadhay. Madaxweynaha Turkiga ayaa yidhi inagoo xoojinayna xiriirka dalalka dariska ah kana bilaabayna kuwa noo dhow ee dariskeena. Dhanka kalena waxaan sidoo kale aan isku dayaynaa inaan kordhino fursadaha ganacsiga iyo maalgashiga ee u dhexeeya Turkiga iyo dalalka Islaamka ah. Doorashooyinka ayaa lagu wadaa in dalkaasi ay dhacaan sanadka 2023. Isla sanadka Turkiga oo noqday jamhuuriyad casri ah kadib dhammaadkii boqortooyadii Cuthmaaniyadda ayaa u dabaaldegi doona 100 sano guurada ee Turkiga tan iyo dowladdii Mustafa Kemal Atatürk oo ku sawiran lacagta liiraha ee dalka. Bishii la soo dhaafay madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa gudoomiyaha banka dhexe ka codsaday inuu dhimo qiimaha dulsaarka
khubarada dhaqaalaha ayaa sheegay in mamnuucidda iibka badeecooyinka qaar inta lagu guda jiray xanuunka safarka ay wax ka qabteen sare u kaca qiimaha. markii ugu horeysay bishii July ee sanadkani ay soo xoogeysatay lacagta liiraha. bishan liiraha ayaa kor u kacday 3%. dhanka kale Istanbul ayaa goob la jeclaysto u noqotay dalxiisayaasha marka la barbar dhigo dalalka kale ee gacanka sababo la xidhiidha iyadoo aysan jirin xayiraado dhanka safarka iyo qiimaha oo hooseeya dhaqanka iyo dabeecadda iyo cuntada iyo cimilada. waaxda dalxiiska ee Turkiga iyo 12% ku kordhisay dhaqaalaha dalkaasi. sidaa darteed isaga oo niyadda ku haya hagaajinta dhaqaalaha ee dalka, indhaha Erdogan waxay u jeedaan kordhinta tirada dalxiisayaasha ka imanaya Russia, Jarmalka iyo dalalka kale ee Islaamka. xogaana wanaag inta xogaha kale isoo gudbin doono nabadgelyo.